بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cabdirasaaq macalin madaxa hay'adda horumarinta bariga Afrika waxaan rabaa inaan la wadaago walaalaha degan St Cloud area especially Stearns County in hay'adda East African Development Agency oo kaashanaysa City of St Cloud iyo Stearns County ay hayaan lacag garaan ah oo loogu talagalay businessyada uu affect gareeyay COVID-19 dhibaatada ay ka soo gaartay xirnaanshada ay xirnaayeen oo ay dhibaatadu ka soo gaartay customer la'aan oo customerkoodii u iman waayay ama ay ka soo gaartay supply-goodii oo kala go'ay hadday noqon lahayd meeshii ka soo qaadan jireen iyo hadday noqon lahayd dadka u deliver gareyn lahaa intaba marka hay'adda waxay rabtaa inay ogeysiiso inay jirto lacagtaas oo annaga aan mas'uul uga nahay City of St Cloud iyo Stearns County application-kana aan bilownay maanta oo isniina January 11 2021 lacagta waa lacag limited waqtigeedana waa gaaban yahay wuxuuna ku eg yahay January 20 waxaana loo kala qaaday waa first come first serve qofkii soo hormara ayaa application-kiisa uu galaya qofkii dib u dhaca isagana waa janiskiisa uu hadee suganaya waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago eligibility-ga waa inuu business-ku ku yaala Stearns County waa inuu business-kaas u cadeeyaa in uu lacagihii 2020ga ay federalka ama stateka ama countyga ama non-profit-yada ay bixiyeen inuu wax ka helay iyo inuu ka helin waa inuu cadeeyaa waa inuu also cadeeyaa in oo lacagahaas ayaga ah uu apply gareeyay laakiin still uu process ku jiro taas waa taas waxaa kaloo laga rabaa inuu business ku cadeeyo profit and loss for 2019 iyo 2020 faa'iidada khasaare wixii ka soo gaaray 2019 iyo 2020 waxaa kaloo la rabaa W9 oo IRS ta ah in ayadana la keeno sidaa darteed midda ugu dambeysa waa inuu businessku si niyad samiya daacadnimo ku jirto uga jawaabo su'aalaha la weydiinayo oo berito aysan dhicin in wixii looga daba yimaado waa inuu waxa uu ka sheegayo uu leeyahay waa helay lacag ay tahay sax oo uu helay lacag hadduusan helinna uu tahay sax inuusan helin xafiiskeena wuxuu ku yaalaa 1411 West St Germain Street St Cloud 56301 telephone numberka naga soo wici kartaana waxa waaye 320-237-6846 1411 West St Germain Street wuxuu dhow yahay library-ga weyn ee St Cloud oo ku yaala downtown-ka sidaa darteed waxaan ku wargelinaynaa businessyada dadka East Africanka especially Soomaalida inay yimaadaan ka faa'iideystaan lacagtaas garaanka waa lacag ay idinku deeqayso City of St Cloud iyo county-ga aad degantihiin oo ah Stearns County wax laydinka raba ma jiro just waxa kaliya laydinka rabaa W9 inaad keentaan business-ka faa'iidada khasaare wixii soo gaaray 2019 2020 haddaad haystaan haddii kale annaga idinka caawinayno noo imaada iyo inuu business-kaas ku yaalo Stearns County iyo inaad information-ka aadna siinayso ama aad ku buuxinayso meesha uu kulli sax yahay oosan wax qalad ku jirin marka waxaad ka codsanaynaa walaalaha inaad timaadaan kana faa'iideystaan janiskaas lacagaha qaabka loo bixinayo waa laba qaab haddii aad heshay lacagihii 2020ga la bixinayay still eligible u tahay laakiin waxaad helaysaa lacag yar inta ay helayaan dadka hadda oo apply gareynaya lacagta maximum-ka ama ugu badan waxa waaye $10,000 haddii aad qaadatay 2020 waxaad helaysaa $5,000 haddii aadan qaadanin lacag ka timid federalka stateka county-ga intoodaba waxaad qaadanaysaa $10,000 marka waana qofkii soo hormaraa hela qofkii daahana ma helayo waay macnaha waxaan rajaynaynaa in qof walba uu yimaado xafiiskeena si looga caawiyo arintaas sidoo ku heli lacagteeda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.